بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. waxaan jecelahay maanta inaan idinla wadaago akhyaar sharafta badan su'aal jawaabteed. Su'aashaas waxay tahay dhalinyaraan ahay maxay ka dhigan tahay? Su'aashaas jawaab far badan bay leedahay. Waxaa ka mid ah jawaabahaas dhalinyaraan ahay waxay ka dhigan tahay waxaan ahay geesi aan soo jeesan. waxaa kaloo jawaabaheeda ka mid ah dhalinyaraan ahay waxay ka dhigan tahay hankaygu waa mid sarreeya. waxaa kaloo ka mid ah jawaabaheeda dhalinyaraan ahay waxay ka dhigan tahay waan ku kalsoonahay naftayda. tilmaamaha aan sheegay iyo kuwo kaleba waa looga jawaabi karaa dhalinyaraan ahay maxay ka dhigan tahay. waxaan jecelahay mid ka mid ah jawaabaha aan tilmaamay inaan sii faahfaahiyo maadaama dhammaantood u baahan yihiin faahfaahin. middaas aan jecelahay inaan faahfaahiyo waxaa weeye midda ahayd dhalinyaraan ahay waxay ka dhigan tahay hankaygu waa mid sarreeya. in hankaagu sarreeyo adoo dhalinyaro ah waxaa keenaya inaad weli wakhtigaagii xirfadahaad waxay uga shaqayn lahayd aad weli tijaabin. marka qofku dhalinyarada yahay waxaa weeye inuu hankiisu sarreeyo aad iyo aad buu wuxuu ugu yahay daruuri. haddaba maadaamaana ummad muslimiin ah waxaan ka qaadanaa tilmaamaha iyo toosinta iyo tilmaamidaba qur'aankeenna kariimka. muxuu ka yidhi qur'aanku in qofku hamigiisu sarreeyo? wuxuu ka yidhi sayidina ibraahim calayhi salaam ayaa ducooyin fara badan alle ka baryayey. ducooyinkaas waxaa ka mid ahayd miduu ku yidhi wajcal lii lisaana sidqin fi laakhiriin, oo macnaheedu yahay yaa rabbi inta aan noolahay iwaafaji inaan waxyaabo waaweyn qabto kabacdina waxyaabahaasi ay haraan marka aan geeriyoodo kabacdi. dadka iga dambeeyaana markay arkaan raadkaas fiican ee aan ka tegey ammaanta ay ammaani doonaan si ay igu noqoto run iyo inaanay sheegin wax ka badbadin ah. ducadaas ibraahim calayhi salaam uu alle ku baryey waxaan ka qaadanaynaa in qofka muslimka ah gaar ahaan dhallinyarada ah inuu yeesho han aad u sarreeya oo uu ku hamiyo inta uu nool yahay in ay muuqato saamayntiisu. uu ku sii hamiyo xataa marka uu geeriyoodo inay muuqato saamayntiisu. sidoo kale waxa aan ka baranaynaa in qofku uu hankiisu sarreeyo marka leeto qur'aanka. waxaa suuratu alfurqaan ilaahay kaga sheekeeyey ayadaha u dambeeya qolo ilaahay aad u ammaanay oo uu iskuna nisbeeyey oo la yidhaahdo cibaaduraxmaan. qoladaas waxyaabay ka baryeen suuradda gebagabadeeda allah. waxyaabahay ka baryeen waxaa ka mid ahaa inay dhaheen wajcalnaa lilmuttaqiina imaaman. allah jala jalaaluhu waxay weydiisteen in dadka ka cabsada isaga ay u noqdaan a'immadii hor socotay ee hormuudka u ahayd. ma aanay weydiisan inay ka mid noqdaan muttaqiintaas, laakiin waxay weydiisteen inay noqdaan hormuudka muttaqiinta. waxay ku tusaysaa weydiisada ay weydiisanayeen allah inay noqdaan a'imma in hankoodu sarreeyey. saa daraaddeed waxaan ka baranaynaa qur'aankeenna kariimka ah in qofku hankiisu sarreeyo. sidoo kale maquulaadka culammada muslimiinta aan ka dhaxalnay oo aan ka soo gaarnay waxaa ka mid a inay dhaheen rubba himmatin axyat ummah. badanaa himmo sarraysa oo shakhsi ku jirtay oo noolaysay ummad dhammaystiran. waxaa kale oo aan soo qaadanaynaa inagoo xoojinayna maquulaadka asariga ah ee aan ka soo gaarnay dadkii hore aan ka soo gaarnay. inuu yidhi shaacirkii tunisyaanka ahaa ee magaciisu ahaa abilqaasim ashaabi inuu gabay dheer tiriyey oo uu kaga sheekaynayay himada sare. waxaanse ka soo qaadanay gabaygaas beyd ka mida oo uu ku yidhi waman yatahayab sucuuda aljibaali yacish abada dahri bayna alxufar, oo macnihiisu yahay qofka caqabadaha iyo howlaha adag ka cabsada inuu wajaho waxa uu ku noolaanayaa nolol hoosaysa. laakiin qofka aan ka cabsan oo buuraha fanta oo caqabadaha jiira inuu gaarayo meesha uu doonayo. horena waa kii gabayga uu ahaa biqadri lkadi tuktasabu almacaali waman dalaba alculaa sahira layaali. sidoo kale waxaan soo daliishanaynaa mar kaleeto alimaam aljawsi oo runtii ama ka mid ah a'immada ilaahay ku galladay ummadda muslimiinta xiliyadii uu noolaa. imaamkaas wuxuu ku leeyahay mid ka mida 3 kitaab oo cajiiba inay cajiib yihiinna laga dareemay magacyadooda almudhish almuncish almurcish. mid ka mida kutubtaa wuxuu ku yidhi low kaanat الnubuwa taxsulu biاlijtihaad lara'aytu man yuqasiru fii taxsiiliha. haddii nebinimada oo ah darajo aad u sarraysa dadka la dhihi lahaa waxaad ku gaaraysaan dadaal iyo karti inta aad bixisaan idinku waxaan arki lahaa buu yidhi ama la arki lahaa dad ka gaabiya
inay xasiliyaan ama ay xaqiijiyaan darajadaas nebinimada. dabcan waxaan ogsoonnahay ka dharagsannahay inuu ilaahay qur-aanka nagu baray nooguna sheegay in nebinimada aan lagu helin dadaal iyo karti dheeraad ah, laakiin lagu helo doorasho iyo in ilaahay uu ku doorto. waxaase ay hadalkan u ahaa dhiirigelin dadku wixii nebinimo ka hooseeya ee darajo sare ah in lagu helayo dadaal iyo karti dheeraad ah, sidaasna looga doonayo qof kasta dhalinyaro ah waayeel ah inuu yeesho